السلام عليكم ومبارك محمود صليبان iyo channelkeeni Tayton Media waxaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa taariikhdii taxanayn noo haydee dawladda Cusmaaniyiinta waxaynuna ku guda jirnay taariikhdii Sultan Maxamuudkii labaad waxaynuna ka soo hadalay laba qaybood maantana waxaynu ka hadlaynaa qaybtii saddexaad ku soo dhawaada walaalayaal burburintii ciidamada inkishaariya Sultan Maxamuudkii labaad markuu arkay awooddii ciidamada Masar ay yeesheen kadib markii si casriya loo tababaray iyo xaalka liita ee ay ku sugnaayeen ciidamadii Cusmaaniyiintu kadib markii awoodi waayeen inay iska caabiyaan kacaankii Giriiga halka ciidamadii Masar ee Maxamed Ali Baasha ay si fudud uga guuleysteen kacdoonkii Giriiga sababtoo ah waxay ahaayeen ciidamo si casri ah loo diyaariyay dhanka hubka fanka dagaalka iyo hababka tababarkaba Maxamed Ali Baasha waxa uu ciidankiisa u aasaasay sidii nidaamka Faransiiska ee waqtigaas ay ciidamadiisu diyaarsanaayeen maadaama ay ahaayeen ciidamada ugu xooga badan caalamka waqtigaas haddaba Maxamed Ali waxa uu kaalmo weydiistay sarkaal ka fadhiistay Faransiiska oo ka tirsanaan jiray ciidankii Napoleon sarkaalkan ayaa qaatay diinta Islaamka wuxuuna ku noolaa Masar waxaana loo yaqaanay Suleymaankii Faransiiska haddaba maxaa u diiday dawladda Cusmaaniyiinta ee weyneyd inay ciidan sidan oo kale ay yeelato yaase ka hortaagnaa Sultan Maxamuudkii labaad inuu sameeyo ciidan noocan oo kale ah si loo soo celiyo haybaddii dawladnimo jawaabtu waa ciidamada inkishaariya kuwaasoo sabab u ahaa guuldarrooyinkii soo gaadhay dawladda 30 sano ee u dambeeyey sidaas darteed sultaanku waxa uu qaatay go'aan geesinimo leh kaasoo ah in meesha laga saaro caqabada hortaagan horumarka dawladda sultaankuna waxa uu 25 May ee sanadkii 1826 miilaadiga waxa uu ku dhawaaqay inuu go'aansaday inuu samaynayo ciidamo cusub oo ah ciidamadii nidaamka cusub waxaana fadwo lagu taageerayo go'aanka sultaanka soo saaray Sheekh al-Islaamka oo la oran jiray Sadeh Daahir Effendi oo ahaa muftigii dalka ee waqtigaas wuxuuna soo jeediyay in la ciqaabo cid kasta oo arrintan ka hor timaada kadibna sultaanku waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada ee uu ku kalsoonaa waxaana uu ku amray in ay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidanka inkishaariya haddii ay kacdoon bilaabaan haddaba sidii sultaanku filayay ayaa dhacday 14 bishii Juun ee sanadkii 1826 miilaadiga ayay ciidamadii inkishaariya kacdoon bilaabeen sultaanka oo markii horeba xaaladan u sii diyaar garoobay wuxuu kula dhacay cadho weyn oo uu qabay 18 sano oo xukunka hayay ciidamada madaafiicda ee daacadda u ahaa sultaanka ayaa si baan u duqeeyay xeradii inkishaariya howlgalkaasna waxaa lagu dilay 6,000 oo ka tirsan ciidamada inkishaariya sidoo kale 20,000 oo kalena gacanta ayaa lagu dhigay dabadeedna waa la masaafuriyay sultaanku waxa uu gebi ahaanba baabiyay ciidamadii inkishaariya oo tiradoodu ay ahayd 135,000 oo askari sanadkii 1826 miilaadiga sidaas ayuuna Sultan Maxamuud uga takhalusay ciidamadii inkishaariya oo ahaa caqabadii ugu weyneyd ee dawladda Cusmaaniyiinta ciidamadani waxay gaadheen heer ay sameeyaan nooc kasta oo musuqmaasuq ah dhab ahaantii tallaabadani waxay ahayd in mar hore la sameeyo sababtoo ah ciidamadii inkishaariya waxay qodax ku ahaayeen sultaan kasta oo qabta xukunka boqortooyadii Cusmaaniyiinta laga soo bilaabo sanadkii 1526 ilaa iyo waqtigan la joogo 1826 miilaadiga waxayna ka soo horjeedeen wax kasta oo isbedel ah waxayna caadaysteen dilka istaba jooga ah ee ay u geysanayeen amiirada iyo salaadiinta boqortooyada dhacdadanna waxaa taariikhda Cusmaaniyiinta loo yaqaanaa dhacdadii wanaagsanayd sababtoo ah waxay meesha ka saartay koox dhib badan oo hortaagnayd horumarka dawladda kadib sultaanku waxa uu bilaabay diyaarinta ciidanka cusub wuxuuna u bixiyay ciidanka gargaarka Muxamadiya wuxuuna ku bilaabay 12,000 oo askari sanadkii 1837kiina waxay tiradoodu gaadhay 160,000 oo askari inkastoo Sultan Maxamuudkii labaad aanu helin khubaro militari oo reer Yurub ah oo ka saacida nidaamka casriyeynta ciidamada kuwaasoo u tababari lahaa qaabka reer galbeedka ee Maxamed Ali Baasha ku kaalmeeyay casriyeynta ciidamada Masar taasina waxay keentay in ciidamada Cusmaaniyiintu awood ahaan ka hooseeyaan ciidamada Masar ama ciidamada Yurubba sida aynu arki doono si kastaba ha ahaatee horumarka ciidamadii Cusmaaniyiinta ayaa ahaa mid la taaban karo aad bayna uga fiicnaayeen sidii ay markii hore ahaan jireen
iminkana waxaynu imanaynaa qabsashadii Faransiiska ee Algeria ee sanadkii 1830 miilaadiga. Faransiiska ayaa muddo dheer doonayay inuu boos ka helo badda Mediterranean-ka si uu ula tartamo ciidamadii badda ee Ingiriiska. kadib markii ciidamada Britain ay qabsadeen Jabal Tariq oo ka tirsan dalka Spain sanadkii 1713 miilaadiga iyo sidoo kale jasiiradda Malta oo ay qabsadeen 1813 miilaadiga. sidoo kale Faransiisku waxa uu doonayay inuu ilaashado ganacsigiisa badda Mediterranean-ka taasna waxa uu suurtagelin karaa oo kaliya inuu qabsado meelaha inta badan ka dhacaan weerarada budhcadbadeeda ee dalalka waqooyiga Afrika. wuxuuna doonayay inuu qabsado dalka Algeria halkaas oo ahayd meelaha weerarada budhcadbadeeda u badan ay ka dhacdo. haddaba qabsashada Faransiiska ka hor Algeria waxa ay lahayd maraakiib dagaal oo xoog leh muddo dheer kadibna waxay maraakiibtana noqdeen kuwa duugoobay. markii dambena gebi ahaanba waxa lagu burburiyay dagaalkii Nafrin ee dhacay sanadkii 1827 miilaadiga markaasoo Algeria ay ka qayb gashay dagaalkii kacdoonka Greega ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaana ka hadhay 5 markab oo kaliya. sidoo kale Faransiisku markuu arkay daciifnimada xad-dhaafka ah ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayuu qorshaystay qabsashada Algeria. Faransiiskuna wuxuu ogaa inaan Cusmaaniyiintu wax filcilin ah ka samayn doonin haddii uu qabsado Algeria maadaama Faransiisku waqtiga ka awood badnaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidaas darteed Faransiisku wuxuu qorshaystay inuu fursadaas ka faa'iideysto oo qabsado Algeria. dalka Algeriana waxay ka mid ahayd wadamada Carbeed ee ka tirsanaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta. balse waqtiga dawladda Cusmaaniyiintu waxay ahayd mid daciif ah. reer Yurubna waxay u bixiyeen ninkii xanuunsanaa. waxaana sii kordhay damicii dalalka gumaystaha Yurub ay u qabeen dhulkeeda iyagoo ka faa'iideysanaya awood darrada dawladda Cusmaaniyiinta. qabsashada uu Faransiisku qabsaday Algeria iyo marmarsiiyihii uu helay. juqraafi ahaan Algeria waxay muhiim u ahayd ganacsiga Yurub. sidoo kale ganacsato badan oo Yuhuud ah ayaa ganacsi ku lahaa dalka Algeria. qoysaska Yuhuudda ahaa ee ganacsiga ku lahaa Algeriana waxaa ka mid ahaa Bakre iyo Basnaaj. haddaba boqorkii Napoleon ee Faransiiska ayaa u baahday xaddi aad u badan oo sarreen ah oo uu ku quudiyo ciidamadiisa kadib markii ay reer Yurub cunaqabatayn ku soo rogeen. waqtigaas oo Napoleon uu weerar ku kala bixiyay wadamada Yurub si uu qabsado. sidaas awgeed labada nin ee Yuhuudda ah ee Bakre iyo Basnaaj ayaa qandaraas la galay oo ka iibin jiray qabandiga uu u baahnaa. haddaba sanadkii 1818 miilaadiga xukunka Algeria waxa la wareegay nin la oran jiray Hussein Dey. wuxuuna damcay inuu labada nin ee qandaraaska kula jira Faransiiska ee Yuhuudda ah inuu ka qaado lacag deyn ah oo ay ku lahayd dawladda Algeria. balse waxay u sheegeen inay Faransiiska lacag badan ku leeyihiin oo aanay awoodin inay deyntaas iska bixiyaan ilaa ay helaan lacagtaas ay ku leeyihiin Faransiiska. Hussein Deyna wuxuu ogaaday in Faransiisku aanu bixin deymaha ay labada nin ku leeyihiin. sidaas darteed wuxuu isku dayay inuu qunsulkii Faransiiska u fadhiyay Algeria oo la oran jiray Biri Defal inuu arrintaas deymaha lagu leeyahay Faransiiska kala xaajoodo. balse safiirku si xushmad darro ayuu ula hadlay gudoomiyaha Algeria arrintaas oo sababtay in gudoomiyuhu xanaaqo. dabadeedna busha yar ee duqsiga lagu buliyo ayuu wejiga kaga dhuftay qunsulkii wuxuuna amray in goobtii laga saaro. waqtiga arrintu dhacaysana waa 29 bishii Abriil ee sanadkii 1827 miilaadiga. Faransiiska oo arrinta aad uga cadhooday wuxuu ka dalbaday Hussein Dey inuu arrintaas uu ku sameeyay qunsulka inuu raaligelin ka bixiyo. balse Hussein ayaa diiday dalabka dawladda Faransiiska ee raaligelinta. kadibna Faransiisku waxay soo direen maraakiibtoodii dagaalka oo ka kooban 600 oo markab oo ay saaran yihiin 34,000 oo askari oo isugu jira ciidamada badda iyo kuwa dhulka. ciidankan oo uu watay admiraal la oran jiray Debraya waxay ka degeen gobolka Sidi Farouk oo 27 kiiloomitir galbeed ka xiga magaalada Algiers oo ah magaalo madaxda dalka Algeria. waqtiga ay ciidamadaasi ka degayaanna waa 14 bishii Juun ee sanadkii 1830 miilaadiga. kadibna 19 Juun ee isla sanadkaas Faransiisku waxay jebiyeen ciidankii Algeria dagaalkii la oran jiray Sadawali. kadibna Faransiisku waxay galeen magaalada Algiers 5 bisha Luulyo ee isla sanadkaas kadib dagaal socday 3 toddobaad.
guddoomiyihii Aljeeriya ee Xuseen Deyna wuxuu oggolaaday inuu isdhiibo. taa beddelkeedana isaga iyo qoyskiisa waxaa loo musaafiriyey dalka Naples. halkaasna waxaa lagu soo afjaray 313 sano oo Cusmaaniyiintu maamulayeen Aljeeriya, maadaama Faransiisku sii maamuli doono ilaa iyo sannadka 1962 miilaadiga. waqtigaas uu Faransiisku qabsaday Aljeeriyana waxa uu ka geystay xasuuq aad u ba'an. haddaba taariikhdiinni maanta walaalayaal halka haynoogu joogto qaybta afraad ayaynu halkaa ka sii anbaqaadi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.